دعوانا سوي سهر لاين official فضلا سبسكرايب لايك دا كومنت كا وحبا naga soo macaanaya asxaabta maanta waxaan haynaa noo martiya barnaamijkeena murtiya madadaalo moo dhafar soo qaban waa tahay saaxiibaad iyo aad baan horta ugu dhawahay barnaamijkan waxa filayna dhawaan bilowday saahirow hasaatay waxaan rajeynayaa markaan inaad dawladsiina caadigiisa guda gali kartaan barnaamijkan daawadeer waa barnaamijkii marti iyo madadaalo aan aalaaba ugu soo qaadan jirnay dadka ugu yara toobsan xagga social media waxaan joognaa goob dakhara oo eeya waad aragtaan roob badaaya waxaan soo qabanay actorkii weynaa ee moo dhafar baan soo qabanay actor hawran laadar ama comedian labadaba laakiin actor aan ma isticmaalo okay waxaan soo qabanay laadarkii weynaa ee moo dhafar ku soo dhawow barnaamijka mar labaad iyo mar saddexaad moo dhafar oo su'aalaha galno tafaasiil naga si naftaado magacaaga saddexaad noo sheegiyo adu karas horta aad iyo aad baan u dhawahay saaxiib mar labaad iyo mar saddexaad ba magacayga saddexan waa Maxamed Rashiid Xuseen balse waxaan ku magac dheerahay moo dhafar because barnaamijyada ayaan ku soo galay moo dhafarna halka ka timid haddaan idin sheego waxa weeyaan maxay ahayd filmku ugu horeyn jiray amba waxyaabo ugu horeyn jiray ayaan dhafar qaadir ahaan oo kala asxaabta ay bixiso qaadir ahaan oo kala reer koonfurtu qaadir u yaqaan dhafarka dhafar halkaas ku yimid moona waa magacaygo Maxamed weeyaan moo dhafar ba magaca asaas loo soo gaabsaday magacaan oo deemka walow magaalada ku galayba suuqa excellent okay shicibka ku taageera kuwa baraha bulshada kugu xiran waxa ninkan odayga ma reer Soomaaliya mise reer Soomaaliland beerada moo dhafar iyo reer Soomaaliya marka dib u eegtid magaranaysa taageerayaashaada maxaad ku waleedahay waa tahay horta Soomaali horta waa Soomaali meel loo joogan boo dadkaygii kuwa Soomaaliya ku jooga kuwa Djibouti jooga iyo kuwa Jijiga jooga kuwa Somaliland joogaba anyway waa dadkaygu hasaate laakiin aan waxaan ku dhashay Hargeysa ku soo barbaaray waqtigeyga qaybihiisa oo dhan Hargeysa ku soo qaatay hasaate luqadana wallahi luqada marka la eego xamarka aad iyo aad baan iska taageeraa dawaatan baraha bulshada ku soo galay mar walba waxaan jeclahay inaan shanta Soomaaliyeed aan soo maro excellent wiismeen aniga waa sax waxaad noo sheegtaa kooxda adiga ka tirsantay ama ku jirto noo sheegiyo inaad hamigaaga sii wadi doonto oo jiranimada aad ku sii jirin mise wax kala doonaysan inaad gudubto waa tahay saaxiib horta waxaan leeyahay horta kooxaban soo maray horta qof films original iyo qof films ta kale team Xamse labadaba aan soo maray hasaate laakiin imika waqti xaadirkan koox kuma jiro waxaan ahay nin iskiiskaga socdaa oo meelaha isagu iskaga barisay excellent balse waxaan doonayaa horta waxaan jiraanimada marka la soo galayo horta anigu marka soo galay jiraanimada isma lahayn wallahi heerkaas aad maanta ka gaari balse maanta heer wanaagsan ayaan ka taaganahay laakiin heer ka sii sareeyaan ka gaadhay ayaan rajeynaya moo dhafar waa laga yaqaanaa imka Hargeysa iyo Somaliland oo dhan ma garanaysaa dabcan filimkii ugu horeeyay aad jisho ama goormaad isku aragtay hibada jilliin aad wado adoo hataan horta waa su'aal fiican saaxiib horta marka hore waxa iska haday waxaan yaal xaafskeyga waxaan u sameyn jiray oo luqadeena iskaga kaftami jiro wax bari bulshada wax ma soo gelin jirin hasaatay laakiin wixii ugu horeeyay jiro waxa iga qabtay Xamse Qalle team of films macallinkooda oo anigana macallinkeyga ahaan jiro halkan ka salaamayo yaa iga qabtay barnaamij filimkii ugu horeeyay duubo oo waqti xaadirka macallinaha hasaatee filimkaas waxa short filmka markii aan duubay kadib nin wixii dhax galaan noqday bari bulshada kadib waan ka sii dalacun sax waxa ku weydiinay markii inta laga imaado hadii lagu dhamaanta wiil qaangaar ah tahay gabadh magaalka ka soo xilo gabadh nooceeda soo xilin horta waloon horta wallahi horta inkastoo aan horta waqti xaadirkan aan diyaar ugu haynde onan gabadhna la sheekaysan aanan noloshada free u ahay haddana wallahi gabadh waxaan jeclaan lahaa horta wallahi waqti xaadirkan gabadh ma sheegi karaan jeclaado
yaa tahay waa la yara cabiraatay la qof markuu dhalinyar yahay imkaanigoo kale markaad eegtid waxaan ku odhan lahaa mid turus macataan geli oo eeyad garanaysaa ilaahay garanaysa dee ilaahay gaadh ku leh aniguna waxaan ku qabsan lahaa gabadh kiin jaamaca mala excellent macala kubabka dee macala kubka macala iyada sababtoo aad iyo aad baan taageeraa qofta qof walba taageeru leeyahay anu imka taageeraan leeyahay aniguna taageer dad baan sii taageeraa sida kiin jaamac oo kale gabadh sideedoo kale oo qurux badan oo ilaahay haybad siiyey fartuun bax teeda kale ma tahay ma haysaa shaqo kale oo aad ku bedeshid shiliinka marka laga yimaado ma horta saaxiib wallahi wiil dhalinyaraan iska ahay oo ciyaal iskoola wax shaqaana gacanta kuma hayo hase ahaatee wallahi hibadayda inaan kaga faa'iidaysto ayaan rabaa aan dee maanta jilayaal dee way jiraan dee waxaan dee magac kale iyo muuqda jilayaashaasoo kale inaan gaadho ayaan rabaa mar walba aan jeclahay dee aan wilna dhaafo gaadho keliya tamaa inaan dhaafo ayaan mar walba jeclahay hase ahaatee dee waqti xaadirkan wax shaqaana ma qabsado nin ardaya ayaan iska ahay hawlihiisaana iska wataa dhankayga marka la imaado waxaan ku weydiinayaa cuntada nooceed jecesha maalinta haddaan ku casuumi siraado cunto nooceeyaad jeclaanayd inuu kugu casuumo oo jecesha mar walba inaad cunto anigu horta halkaa cuntada waxaan taageeraa xabad kooko keliya oo baariga iga badan bacsiibada tahay xabad kooko keliya xabad kookaad ku qadayni xabad kooko keliya iga casuum وانا markayga iyo go'aankayga wax kala aadan ku raacin way barnaamijka markan iyar wadno waxa u dhaxtaanayd in qofku shaqooyin yar oo gaagaaban oo xaraawada oo madaala ay dadku madaal maadaama yahay marti iyo madaalo shaqeero gaaban oo waqtiga soconaysa uga sheegay daawadayaashu daawanaya waa tahay saaxiib horta in kastoo kidisiga ka dhigteen waraysigaad la yeelateen bahda saahir lion official maadaama kidisiga ka dhigteen oo wax su'aalo arday waxay maxay ahayd sheekooyin aan soo diyaarsan waxay diyaarsaneen inay jirin in weydiin nooc doonta ahaatee hasaatee haddana dadkan taageerayaashayda ee maanta soo fadhiya waxay noqotaba wuxuu inaan ku qanayo way aad bay qurux badan tahay wuxuu isku furo yaasha waan ku bedelna maadaama waxa soo diyaarsan kidiskaaga dhigay waxa talent baad leedahay dhowr codadkaaga kala duwan hibooyinka dabcan filmaanta ku jishade qaar kamida bal noogu yara dhawaaqo aniga qoslida waa tahay maadaama dadkii taageerayaashaydii iyo ummadda Soomaaliya oo dhan ay soo fadhiyaan asxaabteeniba in weydii hadda aad iyo aad bay qurux badan tahay wuxuu ku diyaariyo laakiin halkan maxaan ka yaroranayaa marka koobaad waryaa warti sidee bay naga noqotay baarin dadkiina na fiirsanaya warti waan tuugaynaa baa ku leenay di fiidiyowga nadarkasana isla hadda warti rafaad baa loo maray baa ku leenay si amal waridi kuna subscribe nagu raali geliya baan leenahay kii kale adka kala jecel ariya fiirsha min wada halkaas ka soo kambarorsataan mugaad iska kaay fiirsanaysan si amal ariya meel isku dheeli raba ariya horta hore halka wax baan ii sheega fiidiyowgan aad hadda fiirsanaysaan ma ogtiin in rafaad loo soo maray yaxiin mugaasa idin kuna aayar iska fiirsanaysan ar isku shiixan idin ilaahay subscribe nagu raali geliya okay wadiga xisaabaan filaya aadiyad anu markan codadkaaga maqlo aan YouTube ka daawanayno Reexmer baan ku haystaa tan kula mid la yaabaa codkiisan caadiga lama moodinba iyada far waxaan maanta ka doonaya anaga iyo daawadayaashuba midabka ugu jecesheed ugu tubkaad ka hesho nala wadaag ma sheeg horta midab marka dhig labiska noqoto mise mar walba adigu mar walba ma midab waxaan ka helaa midabka madowga midabkaasan ku haystaan mar walba ilawaan madownahay shicibkeen Yurub iyo Mareykan baan nahay farow xaga iyada maadaama tahay nin magac leh oo magaalada ku jira ma jirtaa inaan ku tiro waan ku jecelahay oo iska kugu tiray moodho faro bashkan kuwa niman ku jooga ma jirtaa horta wallahi in saaxiibo gabdho badan ayaa jira oo igu dhaado waan jecel lahay wallahi horta way badan yihiin laakiin gabdho badan oo igu dhaaba jira wallahi
dhafaro waan ku jecelahay balse waxaan ugu soo gabagabeeyay anu inkastoo aan wallahi aan imika waqti xaadirkan jecel u jeeyo hasaate waxaan ugu soo gabagabeeyay markay ku tiraa waan ku jecelahay inantii waxaan ku dhahdaa waa jeceshahay Soomaaliya walaal suuq oo soo dhan bay gudaan ku jecelahay